kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiiba saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta. noloshu waa safar dheer oo qof waliba u baahan yahay inuu si xikmadaysan u maareeyo. mid ka mida maalgelinta ugu qiimaha badan ee aad samayn kartaa waa maalgelinta naftaada. maalgelintaasi ma aha lacag, balse waa aqoon, dadaal iyo inaad yeelato aqoon aad naftaada ku horumariso. markaad rabto inaad naftaada maal gashato, waxaad dhisaysaa aqoontaada adoo baranaya xirfado cusub oo noloshaada waxweyn ka tari doona. waxaanad noqonaysaa qof awood leh, isla markaana riyooyinkiisa si fudud u gaadhi kara. aqoontu waa hanti aan kaa lumayn oo aan kaa hadhayn. meel kasta oo aad tagtana way kula socotaa. waxaa qofka qiimaha u yeelaana waa aqoonta uu naftiisa ku maalgashaday. aqoontu waa awoodda dhabta ah ee aad bulshada ku dhex leedahay. waxaad bulshada saamaynaysaa ama ay hadalkaaga qiimaynayaan hadba intay aqoontaadu gaadhsiisan tahay iyo sida aad uga dhabayso waxa aad sheegto. aqoontu waa waxa keena inaad si fiican u qabato dhammaan howlahaaga nololeed iyo midda bulsheed ee aad dadka u hayso. maanta bilow inaad aqoon barato, adigoo baranaya xirfado cusub, adigoo akhrisanaya buugaagta cilmiga ah, adigoo la saaxiibaya dadka aqoonta leh, adigoo dhegaysanaya aqoonta maanta ka buuxda baraha bulshada. maanta baro oo noqo aqoon-yahankii beritoole dadka hoggaamin lahaa. Welcome to Mamoo's Media Studio and subscribe my channel, like and share. And welcome again and again. Thank you.